أحاديثتي سوكشي علماء السلف كنا رضوان الله عليهم يقولون أقواش وذي كعبيين شرعة يدين الإسلام كم يشي كتاجنت هي سهل ليسي وذا آيات القرآن كم إذا اللود اللي شذارنت آيات وحوي آيات رب يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ضدك وحكم إذا أبو الله سبحانه وتعالى قار قضنا أو إبسنية لهو الحديث شيء كم يدير نقضاه شيء كم يدير اللي يسكون مشغوليه وقت اللي يسكون رافيه ما ولاء وحكوا إبسنية أيها كم إذا أبو الله سبحانه وتعالى محو إبسنية إبسك وحا لقوضا بمعنى ودورانية وبدل قادنيا وحي كانوا رافسنيا يدو دورانيا محو ساوية ليا ليضل عن سبيل الله وحا كبرانيسا مركو سيدا أوقاتو جيدك إلهي إنو كلمه ضدكنا كلميه ليضل عن سبيل الله اللام العاقبة لإدادة إلى علمه بمعنى وحا كبرانيسا أو كإيمانيسا markaad qalabka lagu daaho oo lagu mashquulo heesaha iyo muusiga iyo waxyaalahan uu ruuxu iibsado ama uu qaato natiijada ka iimaanaysa waxa weeye liyudilla an sabilillah inuu jidka ilaahay kallumiyo dadka wuxuuna kalluminayaa markuu isagu kalluunsan yahay waxa kale oo rabbi dabadhiga subhanahu wa ta'ala bighayri ilmin garasha la'aan aqooni ma jirto garashana ma jirto haddii uu garanayo waxan uu qaatay iyo heesahan iyo muusigan iyo waxan dhibka ku jira hadduu garashadeeda leeyahay ma uusan sameeyeenba laakiin waxa ka qarsoon madarrada yani dararka iyo dhibka ku jira ee ruuxa diintiisa ay u geysanayaan qalbigiisa u geysanayaan cibaadadiisa u geysanayaan aakhiradiisa u geysanayaan hawo iyo balwad ma ruuxa wada laakiin bighayri ilmin aqoon la'aan way dambi walbana marka la galayo ruuxa aqoontii baa ka maqano in dambigan iyo caaqibada iyo xumaanta ka dhalanaysa hadduu marka ku baraarugsan yahay dambiga gali maayo laakiin qalbigiisa waxa laga saaraya baraarugsanaantaas baa qalbigiisa laga saaraya markaasuu dambiga galaya saas daraaddeed nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ka zinada galaya markuu zinaysanayo iimaankii waa laga qaaday midka waxadaya markuu waxadaya iimaankii waa laga qaaday midka wax boobaya markuu wax boobaya iimaankii waa laga qaaday wabitaali midkana garashadii iyo iimaankiiba waa ka maqaya markuu macaasida noocaas oo kala dabaalanay waxa laga qarinayaa dhibka ka dhalan kara iyo cidhxumada ka iimaan karta macsiyadan iyo khaladkan baa laga qarinaya rabbi wuxuu subhanahu wa ta'ala jees buu ka dhiganayaa وانا ضدك إلهي أقول تلقى عذاب إهانية أو دلية ضدك الله أقول تلقى سبحانه وتعالى ويتخذها هزوا له الحديث وحيالها سنقضاه بوشيستيس عيار كدقنايا وحو كعياره أيو كدقنايا عذاب إهانية أو دلية أي ضدك سليهن أيو الله سبحانه وتعالى أيضا مركا لهو الحديث ضد إيبسان دونه قادن دونه بالشكل لهو الحديث كاسي محل إلى هذا haddaan doonayna inaan fasirno quraanka waxaan raadinaynaa quraanka loo fasirayo ilaahay hadalkiisu isaga cadeynaya haddaan weyno quraan fasiraya waxaan raadinaynaa ahadiistii nabiga fasirka quraanka ka raadinaynaa laana quraanka nabi maxamed baa fasiray sallallahu alayhi wasallam oo cadeeyay haddaan ka weyno waxaan u noqonaynaa culimadii saxaabada iyo salafku maxay ku fasireen لأن أيجا أجانب محمد مركو وحي كدجي قرآن مركو سود جي نبي محمد بين لنا ولاين أرددي سيبي أهاين تفسير كقرآن كأيجا الله قدم بيا ما حي كفسرين مرك وحي كفسرين صحابة رضوان الله عليهم يسلف كبا ومن الناس من يشتري لهو الحديث كوحي كفسرين هي صحيح كفسرين وحي لك السجن تهاي صحابة فرفضا وحكم إذا مثلا ترجمان القرآن بحر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه منكم النبي وجود صلى الله عليه وسلم ويقول إلهي وكتاب كاجا فهنسيه فسر كيسنا إله بر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه آيات وحو كفسري وحو نزلت في الغناء وأشباهه آيات وحي كسودكتي هي سها يوحي لمد
heesaha iyo wixii shabaha oo u eg ayay aayaddu ku soo degtay buuri cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu waxaa soo saaray aharka cabdullahi bn cabaas alimaam albukhaari fi ladab almufrad ibn abi shayba iyo ibn jariir itabari intuba way wariyeen waana ahar saxiixa wey oo cabdullahi bn cabaas ka sugan inuu yidhi aayaddu waxay ku soo degtay heesaha waxay ka hadlaysa waa heesaha waxaa kaleeto iyadana ay ka sugan yahay cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu isagana ninkii uu nabigu yidhi sal lay wasalam ninkii doonaya qur'aanka inuu u akhriyo sidii uu u soo degay isaga oo qoyan sidii u soo degay inuu qur-aanka u akhriyo ninkii doonaya qiraa'ada ha qaato ibnu ummi cabdin cabdullahi bni mascuud qiraa'adiisa ha akhriya buu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh nin faqiih ah oo saxaabada kibaartooda ka mida oo aqoontiiyo cilmiga aada looga dambeeya ayuu ahaa cabdullahi bni mascuud isagana aayadda markuu fasiraya wuxuu yidhi huwa alghinaa waladii laa ilaaha ilaa huwa buuri waxaan ku dhaartay allaha mid la caabudo uusan jirin oo xaq lagu caabudo isaga mooyaane allahaasaan ku dhaartay aayaddu waxay ka hadlaysaa waa heesaha buuri 3 goor buu ku celiyey ilaahay baan ku dhaartay aayaddu waxay ka hadlaysaa lahwal xadiidka ay leedahay waa heesaha buu cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu ku fasiray aharka cabdullahi bni mascuudna waxaa soo saaray ibn abi shayba ibnu jariir bayhaqi fi shucab iyo keyrkood isaguna waa ahar sanadkiisu saxiix yahay xaakim iyo dahabi iyo ibnulqayim dhammaantood way saxiixinaya waxa waa ahar sugan bay leeyihin waxaa kaloo uu ka sugan yahay in uu aayadda ku fasiray heesaha waxay ka sugan tahay cikrima mawla ibni cabaas waa taabiciintii ardadii saxaabada mujaahid ibnu jabrin oo isaguna min kibaari lmufasiriin ka mida oo ardadii cabdullahi bni cabaas oo isagana taabici ah rag badan bay ka sugantaho salafkii ka mida inay aayadda ku fasireen wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiid waxaa laga wadaa heesaha laga wada sidaas daraaddeed ba alimaam alwaaxidi calayhi raxmat ullah wuxuu yidhi akharu lmufasiriin cala ana almuraada biqowlihi tacaala lahwa alxadiid alghina culimmada tafsiirka badankood waxay qabaan aayadda qur-aanka waxay ka hadlaysa inay heesaha yihiin ayib su-aasha isweydiintana waxay tahay marka hadday tafsiirkii salafka iyo saxaabada iyo ardadoodii sidaa uu yahay ma tafsiirkoodaan qaadanaynaa mise wadaad maanta jooga tafsiirkiisaan qaadanayna waxa weyaan tafsiirkii saxaabadan qaadanayna ridwaan ullahi calayhim wadaad ka dambeeyey tafsiirkiisa iyo tafsiirkii saxaabada hadduu iska hor yimaado tafsiirkii saxaabadan qaadanayna maxaa yeeley iyagaa ilaahay taskiyeyey subxaana wa tacaala ragga ilaahay fahamkooda taskiyey oo macnaha manhajkooda taskiyey oo alla uu ammaanay subxaana wa tacala asxaabu rasuulillahi bay ahayd bal haddii sidoodoo kale aada wax u rumaysaan sidii saxaabadoo kaleeto iimaankiina waa saxsany sidii saxaabada si ka gedisan haddaad wax u qaadataanna waad khaldantihiin qur-aankaa sidaa tilmaamay fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq baa la yidhi subxana wa tacala sida aada wax u rumayseen hadday u rumeeyaan way hanuuneen haddiise ay sidaas si ka gedisan wax u qaataan fainamaa hum fii shiqaaqin dhinac mar bay ku sugan yihin dhinac bay mareeno markaasi waa idin khilaafeenoo waa khaldameen bu alla yidhi subxana wa tacala asxaabu rasuli lah sal ly waslam waa nimanku alla qur-aanka aada ugu ammaanay tafsiirkoodii markaa sidaas ah wabittaali qur-aanka ayaa sheegaya heesuhu inay xaaraam yihiin heesuhu inay xaaraam yihiin qur-aanka ayaa cabiray oo caddeeyey axaadiista nabiga sal lay waslam markaynu u nimaadno axaadiista nabiga sal lay wasalam sidii qur-aanku sheegay unba iyaduna sheegtay dhowr xadiis baynu soo qaadanayna xadiidka koobaad waa xadiidka uu soo saaray alimaam albukhaari fii saxiixihi mucalliqan bisiiqati اljasmi a'imo fara badanna ay sanadkiisa xidhiidhiyeen abu caamir abu malik alashcari saxaabigaasaa laga warinaya wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam layakuunana min ummatii aqwaamu yastaxiluuna alxira wاlxariira wاlmacaazif walayanzilana aqwaamu ilaa janbi calam yaruuxu calayhim bisaarixatin lahum yaأtiihim lixaajatin fayaquuluuna irjic ilayna gadan fayubayituhum allah wayadacu اlcalam wayamsakhu aakhariina qiradatan wakhanaaziira ilaa ywmi اlqiyaamati buu nabi uri sal lay waslam ummadayda waxaa ka mid noqon doona oo aakhiru zamaanka imaan doona dad xalaashanaya alxira wاlxariir alxira waxaa laga wada bimacnaa xubinka taranka way furuujta zinadii bay xalaashanayaan dad zinada xalaashada ayaa imaan doona waxaa kalooy xalaashan doonaan xariirta oo xariirta dee ragga looma ogola dharka xariirta ah dumarka basaa loo ogolyahay
xariirta dad xalaalaysan doonana way imaan doonaan waxaa kaloo imaan doona dad xalaalaysan doona almacaazifa macaaziftana waxaa la yidhaahdaa sida culimmada luqada iyo tafsiirkuba isla ogol yihiin almacaazif waxaa la yidhahdaa aalaatu llahwi waalmalaahi qalabka la tumo lagu ciyaaro hadduu muusig yahay haddii heese loo isticmaalo taasaa macaazifta la yidhahda heesaha iyo qalabka heesaha loo isticmaalo dad banaysan doonaa imaan doona buu nabigu yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh kuwa banaysan doona oo dhihi doona way noo bannaan tahay baa imaan doona bu rasulku yuri sal ly wasalam waxaa kaloo uu nabigu sheegay sal ly wasalam dad baa waxay degi doonaan buur garabkeed buur dhinaceeday degi doonaan midkii xoolaha u raacay baa xoolihii soo caraabinayo galabtii soo hoyinaya galabtii markuu keeno ayaa waxaa u imaanaya nin dalley ah oo rafaadsanoo socota markaasuu le warnimadooda socotaan ahaye hade jidka bal kharashkiisi waxa laga bixi waxa la siiyo markaas waxay odhanayaan berri noo soo noqo berridii intaan la gaadhinba fayubayituhum allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ku yani habeenkiibaa la miraya habeenkiibaa musiibo ku imaanaysa buurtiina waa la dejinaya waa la baabi'inaya oo waa la tirtiraya ilaahay subxana wa tacala eber buu ka dhigaya qolo kaleetuu nebigu sheegay sal lay wasalam wuxuu yidhi waxaa loo bedeli doonaa doofaaro iyo daayeero ayaa loo bedeli doonaa ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamada laga gaadhay siday bini aadam u ahaayeen ayay waxay noqonayaan doofaaray noqonayaan siday bini aadam u ahaayeen baa waxay noqonayaan daayeeray noqonayaan ilan ilaahi subxaana wa tacaala walaysa dalika cala allahi bicasiis allihii bini aadam lugihiisa ku socdo fikiraya kaa dhigay ilbiriqsi ku qaadan maysa inuu daanyeer kaa dhigo ama doofaar kaa dhigo qolyo sidaasana way dhici doontaayoo ilaahay iyagoo dhanba bedeli doona buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka ujeedadaynu ka leenahay waxa weeye nebigu wuxu uhi sal ly waslam dad waxaa imaan doona aakhiru zamaanka heesaha iyo qalabka la tumo ee lagu daahe iyo muusiga banaysan doonaa imaan doona buu nabig sal lay slm maxaa laga fahmayaa inaysan bannaanayn leanna hadday bannaan tahay oo shareecada islaamku ogoshahay lamaba yidhaahdeenba way banaysanayaan midda kale ciqaab looma sheegeen kuwa banaysanayo hadday shareecadu ogosha xadiidku wuxuu nas ku yahay inaynan bannaanayn macaasiftu oo aalaatu lahwiga ah qalabka yani waxyaalahan alaabta lagu daaho iyo heesuhu inaysan bannaanayn buu xadiidku nas ku yahay oo xadiiskaa nabigu cadaynaya salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka waxaa saxiixiyey isagoo saxiix bukhaariga ku yaala haddana aimo fara badan baa xidhiiriyey sanadkiisa sidaas daraaddeed alimaam ibni xasmi oo ku sheegay xadiidku inuusan sugnayn waxay ka mid tahay shuduudaadkiisa wadaado maanta joogana ay ku dhegeen sida khazaali iyo qaradaawi iyo ragga la midka ah oo heesaha fududeeyey xadiidkana khaladkii uu ka galay ibnu xasmi ayay taqliidiyeen ayadoo aimada xadiisku isku waafaqsan yihiin ibnu xasmi inuu gafay oo masalada iyada uu ku gafay laakiin mushkilada taallaayo waxa weeyaan rukhaska iyo waxyaalaha fududaynta hawadaada hadday rabto oy naftaadu doonayso oo sidaad jeclayd ay waafaqdo kolba adiga sidii hawadaada iyo naftaada waafaqda unbaa kolba kula saxsan biniaadamku waa saas sidii naftaadu rabtay balwadaada ahayd shahwadaada ahayd kolba hadalkii u yara dhow iyo wadaadkii u yara dhow ayaa mar walba aad jeceshahayo ra'yigaaga iyo macnaha wax weeyaan sida macnaha wax fiican aad ku tirinaysaa macnaha xadiiskaasi marka waa xadiiska koobaad ee nabigu uu ku cadeeyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay heesuu xaaraan yihiin xadiiska labaad waxa weeye waa xadiidka anas ibn maalik laga warinayo rasuulku wuxu uhi sal lay wasalam sawtaani malcuunaani fi dunya waalaakhira laba sawt ama laba dhawaq oo dhegtu maqasho la dhagaystaayey addunya aakharaba waa lacnadan yihiin buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh waa labadee mizmaarun cinda nicma buu nabi yuri sal lay waslam mizmaarun cinda nicma wa rannatun cinda musiiba yacni waxa weeyaan mizmaarka waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha la garaaco ama kamanada ha noqdeen ama macnaha waxa weeye durbaanadan macnaha bixinaya codkan caadigan ha noqdeen yani waxa weeyaan sawdka heesta iyo muusiga xilliga barwaaqada lagu jiro mar uu addoonku barwaaqaysan yahay oo laban yaho ilaahay u nicmeeyey
inuu heese iyo muusig iyo wax la garaaco uu ku mashquulo sawtkaasi waa malcuun buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam oo haddii la yidhi mar la nicmaysan yahay la barwaaqaysan yahay ma waxaa laga fahmayaa markii la dhibaataysan yahay in la tuman karo muusigyada iyo heesaha la tuman karayo maya ee waxaa laga wadaa dembigu waa kala weyn waxayna u badan tahay markii durbaan la garaacayo oo muusig la tumayo oo muxuu ahaa kaman la garaacayo oo la heesayo oo waxay u badan tahay dad dheregsan oo barwaaqaysan way saas macna nicmadii la rabay ilaahay subxaanahu wa ta'ala alxamdulillah in la yidhaahdo baa lagu kibrayaa markaasaa dhawaaqiyo waxaa loo baxayaa waxaan loo baahnayn baa loo baxaya waa sida maalan reebaadiyo saasay ahaan jireen reebaadiyaha markii abaaruhu jiraan wax isu yimaada iyo wax dhaanteeyo ma jiraan laakiin markay roobabku da-aan oo la barwaaqoobo oo xooluhu u dhalaan oo caano ay helaan oo markaasaa gabdhaha iyo wiilashu isu imaanayaan oo dhaanto la camiranaya dhaanta la tumaya marka waxa weeye waa yani taa nabigu tilmaamay sal alay wasalam mizmaarun cinda nicma barwaaqa markay timaado ilaahay wax ku siiyo oo yani kuu barwaaqeeyo inaad barwaaqadii alxamdulilah dhihi weydo eed la aado inaad heese iyo muusig tumato midaasi waa lacnad buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ku sheegay midda labaadna waxa weeye rannatun cinda musiiba waa baroor ama oohin markii musiiba ay dhacdo markay musiiba kugu dhacdo inaad baroorato inaad ooydo inaad dhawaaqdo inaad marada jeexjeexdo inaad jirkaaga dildilaaciso inaad isdisho khatar isgeliso midana waa malcuuna buu nabigu yiri salawatu rabbi wasalaamu caleyh lacnad buu ku sheegay limaada lianna markay musiiba timaadana waxaa la doonayaa in la sabro markii ay nicma timaadana waxaa la doonayaa in la shukriyo sida nabigeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr ruuxa mu'minka arrinkiisu waa cajiib wax lala yaabo wey arrinkiisoo dhan waa wada khayr buu nabigu yiri sal alay wasalam in asaabathu saraa shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lahu buu nabigu yiri sal alay wasalam yani waxa weeyaan hadday wax uu jecel yahay iyo nicmo iyo barwaaqo hadduu helo waa shukrinaya markaasay khayr u noqonaysaa buu nabigu sal alay wasalam haddii ay musiibo ku timaado oo dhibaato ku dhacdana waa shukrinaya markaas waxaan u jeedaa waa sabraya markaasay khayr u noqonaysaa buu nabigu yiri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka laakiin markay musiibo kugu timaadana in adkaysi lagaa waayo markay nicma kuu timaadood nicmo heshiyo barwaaqo heshana inaad kibirtood ciyaarto ood boodboodo oo ilaahay aada macsiyo ka gasho oo hees iyo muusig aad ku foofto iyo dhaanto aad ku foofto markaasi waxa weeyaan waxay khilaafsan tahay tilmaantii ilahay dadka mu'miniinta ugu sheegay xadiidka waxaa soo saaray alimaam albazaar fi musnadihi abu bakr ashaafici fi rubaaciyaat الضياء المقدسي سجن في الأحاديث المختارة وأنا حديث سنوي الإمام المنذري يهيثمي لوضع وحي إليه رجاله الثقات الشيخ الألباني عليه رحمة الله حديث المتابعات كيسة هي شواهد أي كسحيحيي حديثك كلا وحي ويانا إسلا حديثك كله حديثك عبد الرحمن بن عوف وسجن مرفوعة وحي إني لم أنهى عن البكاء نبي قولنا صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى عن البكاء وهنت اللئيمة ديدين وهنت وحا لقا ودا markay musiiba kugu timaado inay ishaadu ilmayso laysuma diidin ishu inay ilmayso mushkila male laakiin maxaa la diidan yahay dhawaaqa la diidan hoogayay ba'ayay isku shubayay kala shubayay waxna la diidan inaad baroorataa la diidan laakiin inay ishaada ilma ka timaado oo murugtaay waa iska dabiici wey taasi mushkila male sidaas daraaddeed nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi gabadh ilmihii awowga u ahaa ee gabadhiisa zaynab ay dhashay oo geeridii hayso markii loo keeno dhabta uu nabigu saaray sallallahu alayhi wasallam nabigu waa ishayn waayay markaas uu ilmeeyay ilmihiiyo macna wax weeyaan naftu hayso oo naftu ku noqonayso rafaadsan buu nabigu arkay sallallahu alayhi wasallam oo naftu silcinayso markaas uu nabigu ishayn waayay markaas uu ilmeeyay saxaabada ninka midoo la jooga waxa saxaabo la joogtay ninka mid ah oo rasuul ilaahay oo adiga oo hinta loo diiday adiguna waad ilmeynaysaa see wax u jira markaas uu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam alqalbu yahzan wal aynu tadma ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إشوي إلمين بنبي صلى الله عليه وسلم قلبنا ومرقيا لكن أفك النجا يأدين كالنجا من مكة الصبح ماي وحن الله الرالي كاهي سبحانه وتعالى مركا وحن النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى عن البكاء إشو إلى إلمين صلى يمد دين بنبي صلى الله عليه وسلم ولكني منهيت عن صوتين أحمقين فاجرين بنبي صلى الله عليه وسلم وحاسي الله إيدي ذي والرب يقرب بنبي صلى الله عليه وسلم لبط وق ama laba sawt oo doqomo ah oo faajireen oo dambiilayaal ah waa laba dhawaqo labaduba doqomo yihiin nacasiin ah
يعني صاحبك الروح كل واقع نعس وحبا قال قرنين فجور إيا دنبنا حنبارسا محيه لوضع صوت عند نعمة برواقة مركي لهلو رواق إيا الصوت ومحيه مركاسي لهو ولعب ومزامير الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم باهد وحلو قداه ما ويلو لغو عياره إيوه دربان شيطان ومزامير الشيطان دربان هذا الشيطان يعني مزامير توحل وجمع مزمار وكان صومر لو قلب كان للطماء من قلب كان للقراعه معناه وحوي هي سهل يعني وحوي لغو كوصار أما إيدان كان لو قدقه صوت كبحيو أو من أي واحد لهذا مزمار لهذا نبي يقول حكوشة صلى الله عليه وسلم إنه هول الشيطان تهي صلوات ربي وسلام عليه صوت كاللبان وحو النبي هو صوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب والرنة شيطان وحويان مركي مصيبة ما دواق بحي قيلة بحيس أو أبرورتا معنا وجهي والله نرباحه وضدك قاربا وجهي يسكن نرباحه مركي مصيبة كل عب قاربا تماه انتي قبطان بيسكن قوقويان قاربا انتي نركي قاتان بينركي اسكن شرشران مركي وحوي لطم وجوه وشق جيوب مرض انت لقبت ميشن كليتك إن لا تشجحو إذا دنبا لقوقويو إيا ورنة الشيطان إيا الشيطان دواقي بنبي صلى الله عليه وسلم شيطان دواقي وحا لقوا ذا إسلام تبرورنيسا روح أويية هو يوبعي كوهية ورنة الشيطان لوضع دواق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرب ولا الإيدي دي برسول كله صلوات الله وسلام عليه حديث كاوحا صوصاري الإمام الحاكم بيهقي ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي آجري في تحريم النردي بغوي في شرح السنة الطيالسي في مسنده أي نفر بلنبا صوصارتي وانا حديث بنوق دي سمركا اللي يسوي الصغوة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ساء وكدي دوحا كم ذا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والرسول كل صلوات ربي وسلام عليه إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام بالنبي صلى الله عليه وسلم الله وحو حرمي وأودي ذي خمرضا ربي وحو إذن كحرمي خمرضا وحو إذن كحرمي خمارك وحو إذن كحرمي الكوبة كوبة وحل إلى هذا وقلب كان لقراعه أو طبلغا إمام أحمد يسير كفصير أيام طبلغا وقلب كان لطمه إلا عياره إيه سهل نقول لمانيه أيام اللي هذا تانا إلهي وإذن كحرمي وحاك لو إذن كحرمي والغبيراء غبيراء ذا وحل إلى هذا وخمرا لقصة مايو باشا اللي هذا بدرك يعني وحو يعني سجدة يريرتاه خمرا لقصة مايو خاصة وحل إلى هذا الغبيراء نبي يقول صلى الله عليه وسلم وكل مسكر حرام شيء كستو وحصر قاميا وحرام بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه حديثكم مركب وحو الناس كوياي وحو اسكو دري خمردي خماركي هاسيه iyo qalabkii muusiga iyo khamrada nooc kamida intaas uu nabigu isku lamaaniyay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi intaas la isku daray marka nas bay ku tahay xadiisku waana ku cadeeyay inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam rabbi waa xarimay heesaha waa xarimay muusiga waa diiday nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi xadiiskaasi waa ka sugan yahay waxaana soo saaray xadiiska Abu Daawud al-Imam al-Tahawi fi sharh ma'ani al-athar Bayhaqi أحمد بن حنبل الفسوي في المعرفة ابن عبد البر يسجل في التمهيد شيخ الألباني عليه رحمة الله وحوليه حديثك وحسن لذاته أما يعني وحوي وصحيح بشواهده حديثك وحديث هو طب يعني كوبضنا وحل إلى هذا سان هريب أسوى شيخني الكوبة هي الطبل سيدة إمام محمد وكفصري يعني وحوي وقلب كان للطموي قلب كان للقراعه إيه سهل الله استعمال أيال إلى هذا حديثك أفرادنا وحديثك إسجع حديثك الشناد كتوسيا إلي حرام تهي نبينا كسر صلوات ربي وسلام عليه وحوي حديث عمران بن حسين والنبي صلى الله عليه وسلم وكر يلي والرسول صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف قيل يا رسول الله ومتى ذاك قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور بالنبي صلى الله عليه وسلم ومضى إذا وحى لعي دونا أو نحدى إيمان دونا قذف مصائب سمد لغاقسو قاني دونا مصائب سمد لغاقسو قاني دونا سيدي قنطاله وكالي إيه ومسخ بدليد
bini aadamnimadiiba inta laga bedelo xayawaanaad kale loo bedelo dameero laga dhigo doofaaro laga dhigo daanyeero laga dhigo maskhiga waxaa laga wadaa in bini aadamnimadiiba laga bedelaba oo wax kale laga dhigo taana way dhici doontaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaa kaloo dhici doona wakhasfun dhulgooyo in dhulka la isla jaro oo sidii loo deganaa uun magaaladan uu dhulku liqo ruuxii iska socda meeshuu ku socday ay la go'do arrimahaasaa imaan doono ummadayda dhexeeda imaan doona buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaa la yidhi rasuul ilaahayow goormay imaan doonaanoo arrimahaasi ay dhici doonaan waaba arrimo la yaab leh gantaalo samada laysaga soo garaaci doono dhulkoo laysla goyn doono dad la bedeli doono bini aadamnimadoodiiba la rogi doono goormay dhici doonaan baa la yidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam idaa daharat ilmacaazif markay muuqdaan qalabkan la tumo ee heesaha loo isticmaalo muusigu markuu muuqdo oo la muujisto oo bannaanka la dhigto oo uu bato oo uu faafo oo uu meel walba galo soo taasi hadda ma jirto meel walba waa yaallaa guryaha guri aan laga helin waa yarya xataa haddaan cajaladihiisii la keesanin oo ruuxu uusan soo iibsanin telefishin baa u yaalla telefishinkii waxa weeyaan war yar markaad ka dhegaysanayso muusig yar baa waxoogaa lagugu soo dhaweynaya hees yar baa lagu daaraya ama meehe war yar baabad idaacad ka dhagaysanaysaaba idaacaddii intayna soo gelin warkaad ka rabtay waxaa lagugu maaweelinayaa heese iyo muusig baa lagugu maaweelinaya nebigu siduu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka way faaftay oo meel walbay gashay taasi waa midda koobaad markay qalabkaasi waxyaalahaasi faafaan waa midda koobaad midda labaad nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam wa kahurat alqiyaan alqiyaan waa jamcu qayna qaynadana waxaa la yidhaahdaa waa haweeneyda heesta wey haweeneyda hadda loo yaqaano fanaanadda waxay fanaano tahay ma jirtee middan fanaanadda la yidhaahda luqadda carabiga waxaa la yidhahdaa alqayna la yidhahdaa welilmacluumiya waagaas hore ee nebiga salawaatu rabbi wasalamu aleyh nebi maxamed la soo saaray rag heesi jiray ma jiro haweeney xor ah oo heesi jirtayna ma jirto heesaha waxaa samayn jiray xataa gaaladan ka hadlayna islaamka dhexdiisa maaha xataa gaalada iyo jaahiliyadii carabta wakhtigeedii islaamka ka horreysay waxaa heesi jiray waxay ahaayeen dumarka addoommada dumarka addoommada markay khamrada cabayaan bay keensan jireen ayagaasaa marka u heesi jiray u niikin jiray yani waxa weye dumarka addoommada heesaha lagu yaqaan haweentaa heestaa marka waxaa la dhihi jiray alqayna la yidhahda nabigu wuxuu yhi sal lla alay slam marka dumarka heesa markay bataan waa midda labaad midda saddexaadi waxay wa shuribat lkhumuuru khamradana la cabo khamrada cabitaankeedana ay badato waagaa yani waa dhici jirtay marka qaarkood in la cabo laakiin waxaa laga wadaa markay badato cabitaankeeda oo nabigu sal lay slam wuxuu sheegay xataa in lagu cabi doono magaceedii magacaan ahayn magacyo fara badan oo kalea loo baxsan doonaa oo lagu cabi doonaa buu nabi uri sal lay wasalam magacii sharcigu sheegay khamrada ahaydna waa laga leexin doonaa saddexdaa arrimood markay dhacaan ummaddaa waxaad sugtaani waxa weeyaan dhulka in laydinla gooyo dadka qaarkood la bedelo la masakho iyo in samada wax laydinkaga soo gano oo see laysu geli doono allahu aclam saddexdaa arrimood waxaa ka mid a qalabkan la tumo iyo muusiga heesaha iyo dumarka heesa markay bataan oy soo baxaan arrimahaas suga buu nabigu leeyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa khalad weyn waana gaf weyn waana khata weyn hadduusan khalad weyn ahayn dhulka layslama gooyeen ilaahay subxaana wa tacaala markuu doonayo inuu kaa argoosto haddaad bulsho degan tahay ama dowlad tahay ama aad qoys tahay ama ruux keligii aad tahay allah subxaana wa tacaala ciidankiisu waa badan yahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ciidamada ilaahay cid ogi ma jirtoon isaga ahay waxaan khalaa'iqdan oo dhan baa ciidan u wada ah dhulkani waa ciidankiisii samadu waa ciidan qoraxdu waa ciidan dayaxu waa ciidan yani jinku waa ciidan yani insiga laftiisa ayaa ciidan ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doonu adeegsan karaa markii ilaahay khalad laga galo subxaana wa tacaala dulqaadkiisaabaan ku joognaa oo in badan waaba inoo dhaafaya inta badan waaba laynoo dhaafaya laakiin markay noqoto in layna ciqaabo meel fogba laga raadin maayo saas way macana markuu fasaadku bato waa dhacaysa waa tan hadda aad aragteen adduunka in au batay dhulgariirku batay waana astaan nebigu uu sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qiyaamadu markay soo dhowdahay oo adduunkanba la baabi'in rabo la tirtiri rabo
waxyaalaha astaamaha lagu garan doono waxaa ka mid ah inuu dhulgariirku bato buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh degmooyin dhan iyo ummado dhan baa hal mar dhulku liqaya taqriiban haddaad fiiriso maalan hadda qalabka warbaahinta telefishinada iyo idaacadaha iyo aada u mutaabacayso malaha adduunka wiig ama toddobaad uusan dhulgariir ka dhicin waaba yaryahay mana jiri jirin wax la arki jiray ma aha waa wax ku soo kordhay adduunka ku soo kordhay nabi maxamedna waa sii sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh waxa keenayana waxa weeye waa kuwa nabigu uu tilmaamayo salawatu rabbi wasalaamu calayh khaladaadkan la banaysanayo khaladaadkan la banaysanayo ee loo dagaalamayo ee la faafinayo ee lacagta lagu bixinayo ee waqtiga lagu bixinayo ayaa keenaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ciqaabaha noocaas oo kale addoommada ciqaabo waxaa ugu dambeysay bakistan waxaa ka sii horeysay tsunami baa ka sii horeysay oo 100,000 ay ku tagtay ilbiriqsi gudihi ilbiriqsi wax badan ba ka soo wareeg maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala badan isagaa u taliyay hal mar hadduu amar siiyo waxa dhulka joogo dhan tirtir hadduu yidhaahdo hal xaba inaga fakan maayo walaa diyaarad baan lagu fakanaynin walaa saaruuq baan lagu fakanaynin walaa wax ku fakin kara ma jiro maxaa keenaya isbedeladan adduunka ku socda waxaa keenaya macaasida addoommada ay soo kordhiyeen waxyaalaha lagu madax adaygaye gaaladu faafinayaan in badanoo muslimiinta ka mid oo muqafaliin oo iyaga raacayna ay qaateen baa keenaya masaa'ibtan adduunka ka socota hadda soo aad loogama cabaadaya hawadii adduunka isbedelaysa cimiladii waa isbedeshay kulaal baa dhacay meelaha qaarkood baraf baa baabi'inaya limaada wax kale ma aha bimaa kasabad aydiikum waay shaqa xumadiina waay khaladkaad gelaysaan sidaas daraaddeed buu nabigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay dadka heesaya iyo heesaha iyo muusiga iyo qashinkaasi markay bataan markaa waxaad sugtahay waxa way dhulkoo la isla gooyo samadoo gantaalo la iskaga soo rido oo masaa'ibi ka timaado iyo dad la bedeli doono oo bini aadamnimadoodiiba la bedeli doono midaas sugaba rasuulku ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh